madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta waxaa munaasabada bisha Ramadaan awgeed waxa uu cafis u fidiyay ku dhawaad 500 oo maxaabiisa kuwaas oo faldambiyada kala duwan loo haystay wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Somaliland ayaana lagu yiri laga bilaabo taariikhda maanta waxaan cafis guud u fidiyay bilashada bisha barakeysan ee Ramadaan awgeed maxaabiista dambiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada kala duwan ee Somaliland ku jira kuwaas oo tiradoodu ay dhan tahay 484 maxbuus cafiskani saameyn kuma laha xuquuqda madaniga ah iyo raadka ciqaabeed ee ka dhalanaya sida ku xusan qodobka 92 ee xeerka ciqaabta guud waxa cafiskan fulinaya xafiiska xiriirlaaliyaha guud ee maamulka Somaliland iyadoo la raacayo liiska maxaabiista ee la soo bandhigay magacyadooda madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhanka kale u rajeeyay ummadda islaamka ah gaar ahaan kuwa deegaanada Somaliland ku dhaqan in si nabadgelyo ah caafimaad qab ah ay ku cibaadaystaan bishan oo ah bishii Quraanka uu soo degay